السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسر هذا عشرة امتحانها برشاد اللغة بايثون كل ساعتين جنالك CR ورسمة. عشر كان نقدم بيه وحان درني لايلي أما exercise عن وطلقلني إن لغو practice جري وحي لغا برتي while loops وحان هل كان كسر قد بنيا حالكي وأن رجينا يقاربنا إن كم إذا إن أي سكود ديين كنا شقيين. waxa uu ahaa sidan oo kale shaqadii aan isu dirnay oo waxa halkan aan ku soo qornay code-kii tusaale ahaan naga rabay oo sample ah in siiyay sidoo kale waxaan in tusay output sidan oo kale ah ayaa la rabaa in aan soo saarno haddii aan ka bilowno intan waxay sameynaysaa dabcan sidii hore aan u aragnay hal shaqaale in ay macluumaadkiisa ay noo xisaabiso iyadoo ayaan ku dul bedelayaa waxaan halkan ku bilaabayaa inaan abuuro marka hore variable kii wax noo tirin lahaa ama counter ka ahaa sidii aan sameyn jirnay counter ayaan u bixinayaa counter is equal to dabcan magaca u bixin kartaa laakiin counter iska isticmaalaya counter is equal to 1 ayaan leeyahay waxaan halkan isticmaalayaa si aan idinkugu muujiyo comments-kii aan isticmaali jirnay qaybtan ama sarkan wuxuu u taagan yahay waxaan dhihi jirnay initialization oo ah variable kii noo tirin lahaa loopka in aan wax ku bilowno marka hore waxaan abuurayaa while loop ayaan halkan abuurayaa waxaan leeyahay while inta counter uu ka yar yahay ama la eg yahay 3 ayaan hadda rabaa laakiin dabcan intii aad rabta ayaa ka dhigan kartaa numberka halkan waxaan leeyahay iyadana comment kale waa shardigii labaad ee aan dhahaynay condition waxaan rabaa marka 3 qof ayaan rabaa 3 shaqaale inaan xisaabiyo salarigooda iyo lacagta ay qaadanayaan haddii aan marka 10 halkaas ayaa 10 ka dhigi lahayd sidoo kale haddii wax kale aniga oon samaynin aan intaan soo koobiyeeyo oo aan loopkayga aan hoos keeno intan oo kabacdina aan dhaho markii shaqadan la qabto counterkaygii increment gare oo xabad iigu dar counter plus equals 1 haddii aan intaan bis aan tijaabino waxaan rajaynayaa shaqadii way qaban doontaa laakiin outputka aan rabo ma noqon doono aan tijaabiyo intan outputka aan rabo u imaanaya right click aan leeyahay ii ran gare application kan wuxuu leeyahay enter hours worked saacadihii uu shaqaalahan shaqeeyay soo gali si aan ugu ekaysiiyo waxaan leeyahay tusaale ahaan wuxuu shaqeeyay 20 saacadood saacadii meeqa ku shaqeynayay $8 ayuu ku shaqeynayay 160 ayuu leeyahay haddana soo gali uu leeyahay qofkii labaad meequu shaqeynayay qofkaana 20 uu shaqeynaya leeyahay meequu ku shaqeynayay $7 wuxuu leeyahay 140 qofkii kale ayuu soo gali leeyahay 20 ayuu shaqeynayay meequu saacadii ku shaqeynayay $6 wuxuu leeyahay 120 wax weeg marka outputkii aan sheegay way tahay laakiin sidii aan u rabay outputku ma ahan oo sida aan halkan ku sheegnay commentigan aan ku muujiyay waxaan rabaa shaqaalihii koobaad lacagtan ayuu qaadanayaa shaqaalihii labaad lacagtan ayuu qaadanayaa iyo wax la midka ah mar kaliya waxaan rabnaa bis inaan soo akhrin karno counterkii wax noo tirinayay inaan ku soo dhex dari karo meesha gross pay uu leeyahay outputka bis aan bedelayaa halkan ayaan waxaan rabaa marka in aan wax yar ka bedelo waxaan dhihi lahaa tusaale ahaan waxaan dhihi lahaa employee 1 employee way ka siman yihiin haddaa fiirso maxaa isbedelayo 1 2 3 un ayaa isbedelayo shaqaalaha markaas la joogo iyo wax weyn intuu ka imaanaya marka 1 2 3 wuxuu ka imaanayaa dabcan variable-keennii counterka ayuu ka imaanaya marka haddii aan dhaho employee comma counter wuxuu samayn doonaa inuu employee qoraal ahaan usoo qoro counterna lambarka ku jira uu soo qoro marka koowaad waxaa ku jira 1 marka xigta waxaa ku jirta 2 mar kale waxaa ku jirta 3 haddii ay sii badan yihiin sidaas ayuu u wadi doonaa 4 5 ilaa intii aad rabto markii aan dhaho marka employee qoraal ahaan usoo qor counterka waxaa ku jiro soo qor kabacdi ayaan haddana waxaan leeyahay waxaa ku xijisaa qoraalka gross pay is 2 dhibic kabacdina waxaa ku daba qabataa gross pay wixii ku jiray marka wax u eg wixii aan rabay ayaan halkan ku qoray employee qoraal ahaan usoo qoraynaa employee 1 halkuu ka imaanayaa wuxuu ka imaanayaa variable-kan counter gross payna sideed usoo qor ayaan dhahnay gross pay is sideed usoo qori doonaa isku dhagan 140 waxay ka imaanaysaa ama 160 waxay taana variable-keeni gross pay wixii ku jiray oo ka imaanayo saacadihii la shaqeeyay lagu dhuftay
saacad walba lacagtii lagu shaqaynayay marka intaas oo kaliya ayaan bedelaynaa haddaa fiiriso marka kaliya printigii ama outputkii oo mar hore aan soo baranay bilowgii casharadani ugu horreeyay kuwii ay ka mid ahayd ayaan kusoo aragnay printiga iyo sida loogu la isugu daba qabto variables wax ku jiro iyo qoraal iyo wixii la midka ah haddii aad fiiriso marka sadarkaas oo kaliya ayaan u baahannahay inaan wax ka bedelno aan tijaabino haddii sidii aan u rabnay ay wax u qaban doonto iyo haddii kale ran ayaan leeyahay saacadihii soo geli ayuu dhahay la shaqeeyey 20 ayaan leeyahay saacaddii meeqa lagu shaqaynayay $7 muxuu leeyahay haddaa fiirso employee 1 gross pay is shaqaalihii koobaad $140 ayuu leeyahay shaqaalihii labaad ayuu soo geli dhahay saacadihii ayuu soo geli waa dhihi kara halkaa lafteeda inter employee 2 saacadihii uu shaqeeyey inter employee 2 lacagta ku shaqaynayay inter employee 3 waa dhihi kartaa iyada lafteeda fikradda guud inaa fahantay ayaan jeclahay soo geli markuu dhaho 20 saac ayuu qofka labaadna shaqaynayay meequu ku shaqaynayay waxaan leenahay qofkan 8 ayuu ku shaqaynayay dollar muxuu leeyahay employee 2 gross pay is $160 haddii aan dhaho qofkii saddexaad soo geli ayuu dhahay 20 saac ayaan leeyahay haddana meequu ku shaqaynayay saacaddii $6 haddaa fiiriso wuxuu leeyahay shaqaalaha saddexaad isagana 120 ayuu qaadanayay shaqadii marka koobneed aan isu dirnay sidaas oo kale ayay noqonaysaa xalkeeda waxaan rabay oo kaliya inaad isku daydo oo tijaabiso sida ay wax u dhacayaan meesha marka fahamka kaliya laga rabo wuxuu noqonayaa in aad fahanto variable-ka loopka ku tirinayo meesha aad ku bilaabayso ilaa intuu soconaya variable-kaas loopka dhexdiisa hadaa uga baahato sida aad u soo akhrisan karto ama u isticmaali karto iyo inaad variable-kaas aad wax ka bedeshid ayuu noqon karaa sida aad u isticmaalaysid intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa casharkeennan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh